Professor Cabdi Ismaaciil Samatar oo kamid ah aqoon-yahanada Soomaaliyeed ee ku nool wadanka Mareykanka ayaa kamid ah dadka sida weyn ula socda waxyaabihii meel ka dhaca ahaa ee uu qoray Farmaajo fiisaska uu qoray master's degree uu ku qaatay haddaan fogaha sheego wax weyn oo xikmad weyn oo runtii ku jirta qoraalka ma jiro waxaad moodaa in qabyaalad badan ee qoraalka ku jirto oo reer la eedeynayo dad madaxa oo maamulkii xumeeyaan la eedeynayn marka haddii ninka ra'iisul wasaaraha lagu sheegayaa ra'yiga halka ku cabiray yahay halku ka duuli doono uma malaynayo farsamo weyn inuu soo kordhinayo wax weyn oo soo kordhinayo waayo waxa weeyaan maqabaha oo qore faraha badan la runtii markan aad u dhuuxay fikirkuna ma wanaagsana hatta taariikhda Soomaalida ayuu wax yeelayaa oo been ka sheegaya Ra'iisul Wasaare Farmaajo ayaa waxa uu meel ka dhac weyn ku sameeyay qaar ka mid ah qabaa'iladii kaalinta ku lahaa la dagaalanka kumeysiyashii Ingiriiska iyo Talyaaniga asaate Professor Cabdi Ismaaciil Samatar ayaa isagu wax lala yaabo ku tilmaamay in ra'iisul wasaaraha cusub uu xitaa ka xishoon waayo marxuumiinta kala ah Aadan Cabdulle Cismaan iyo Cabdirashiid Cali Sarmaarke oo iyaga oo muutan ka been sheegay taariikhdooda wuxuu leeyahay Aadan Cabdulle iyo Cabdirashiid Cali Sarmaarke siday madaxnimada ugu soo baxeen waxa ay Talyaanigii baa ka dambeeyay marka wuxuu masaxaya waxa weeye iswaashigu masaxaya taariikh xalaal ah ay labada qof kala haayeen Cabdirashiid markuu ra'iisul wasaaraha Aadan intuu ra'iisul baarlamaanka markii lagu jiray Talyaaniga Israa'iil uu la dagaalamayeen inay wadanka u xoreeyeen wixii oo dhan baa masaxaya qabiilo iyo Talyaani inay wax watay baa laga dhigaya marka ninka waxa qoray waxna waxa la qoray sanadka kaliya baa la qoray wax waa hore maaro qofku ka soo isbedeli doono waxa weeyaan fikrad weyn halka kuma jirto markaas aniga waxay su'aal weyn ay xalaamad su'aal weyn bay ninkan duldigaysaa inuu awoodeedii fikirkeedii iyo fahamkii wadanka leeyahay Professor Cabdi Ismaaciil Samatar ayaa sidoo kale nasiib darro ku tilmaamay in ra'iisul wasaaraha dawladda ku meel gaarka laga dhigo nin dambiye ka garay shacabka iyo taariikhda wadankooda isagoona bulshada ugu baaqay in ay midnimo ka yeeshaan ra'iisul wasaaraha cusub iyo dhammaan dawladda ku meel gaarka oo ku tilmaamay mid dhibaato u geysanaysa shacabka iyo wadankaba laakiin astaanta maanta ka arkaya waxa weeye astaan cilmi weyn aan lahayn farsamo weyn aan lahayn taariikhda Soomaalida kan been sheegaysa qabiil ay ku dhisan tahay oo qabaa'il ayuu sheegaya qabaa'il xun iyo qabaa'il wanaagsan ayuu sheegaya marka waxa weeyaan wax lagu dirsan karo waxa uu qoray ma ahayn haddii ninkan meesha la keenay shariif keensaday ودفهم عصبية وناق عصبية تقدر عصبية كرت عصبون وحنا قري عن هو اللي قبل يفكرين أدول لي ما دنا ولا عارك أدول لي هاي من دوحي سوحنا كجيران لا هو قري وحوي كريم معي مركز الصومالية حتى يكون سبابي وايان ولا نمدو الفهم وايان وحنون كل ولا الكود قاري دريمي وايان وحوي معلم بدون بمقاحية كشيلان دونا أما كان الصبح هذا ما كوي هرا هذا أما شريف حسن كان برلمان كشيغان إيها هذا أي مكشيغان إنه وصعد الجهود مدحوينها وحوي وارجع مدحوينها بالأصعد وحرون قطنا دلالة مركا فرتي تجد ويدران تاي إذا هنا لك ما يتبيرون لكن ستتك الصومالية ديكو وحويا ما يسورورين دونان ما يديدني مغرب كراويا هذا يتعلم ويان تلفوهاي تاسوم يدعون دونان يكون النافع يكسو قارسي يدعون يطلقون فضلا الشرقرية هذا الشرقريسان بريت 10 في عمد يلسان هذا الشرقرية هذيك أنا قلت واحد أنا يدوش شيء هذا الشرقرية كل الشرقرية هذا دليل في دماغي الشرقرية كل جين all of you نار كله في بدنك أعرف كيف الحرة يعنون دليل كده وعن بس صدقوا إلا وبين إلا صاحب بان كلنا هي بين ورا شرقرية يلا شرقرية